mudanayaal iyo murwooyin soo dhawaada dhammaantiin meel walba oo daafaha dunida ka joogtaan oo ku soo dhawaada Machadka Darwiish Academy wali waxaan dhexda kaga jirnaa qulqulkii taxanaha ee casharadii asaasiyaadka ahaa qaybtan waa qayb muhiim ah oo aan kaga hadlayo saddexdan qodob oo aan si qoto dheer oo faahfaahsan uga hadlayo caawinaysana qofka asaasiyaadka ah oo bilowga inuu suuqan ku dawaqin sababtoo ah casharada tani midba midka ka horeeya buu kugu xirayaa midba midka ka horeeyo fahantina waa adiga oo fahmay sirtii suuqa kan waadna ku raaxaysanaysaa sababtoo ah waxaan doonayaa in aadan suuqan ka niyad jabin oo aad noqotid qof xor oo iskiis uga shaqaysta marka waxaan ka hadlayno waxa weeye oon aad uga fikiray qaybtan asaasiyaadka ah inuusan qofku ku wareerin sababtoo hadduu qofku asaasiyaadka ku wareero qaybaha kalena wuu ku wareerayaa marka waa muhiim sida taxanaha u kala horeeya inuu qofku u fahmo suu ugu raaxaysto casharada kale oo waxa weeye ka dambeeyaba muuqaal ka dambeeya qofku waa inuu niyad u sii hayo kuna raaxaysanayo dareemayana deganaansho iyo xasilooni iyo fahan maskaxeed okay waxaan ka hadlaynaa marka saddexdan qodob annagoo qeexayna waa maxay take profit waan qeexaynaa waxa uu yahay waxaan qeexaynaa waxa uu yahay take profit waa maxay take profit waa meesha aad rabtid in aad suuqa uga baxdid faa'iidadaadana ka qaadatid baa la dhahaa take profit waa meesha aad rabtid in aad suuqa uga baxdid oo targetkaagu ahaa aad tira halkaa markuu gaaro ama 25 bib ha ahaato ama 50 bib ha ahaato ya bibisku waa intuu suuqu movementiga uu ka sameeyay meesha aad ka gashay ilaa meesha aad uga baxday okay halkaasoo targetkaaga ahaa baa waxaa la dhahaa take profitku marka waa maxay intii aad suuqa ka doonayso aashay automatically isaga iskugu kaa xiraya waxaa la dhahaa take profit baa la dhahaa waana meesha aad rabtid meel cayiman oo aad rabtid inaad suuqa uga baxdid adaana go'aaminaya taasaa waxaa la dhahaa take profit waxaa jira oo kale la dhaho waxa la dhaho entry pointigu waa maxay waa meel cayiman ee meesha cayiman ee aad rabtid inaad suuqa ka geshid waa meesha cayiman ee aad rabtid inaad suuqa ka geshid taasaa waxaa la dhahaa entry point waxa kaloo soo raaca oo la jira waxa la dhaho stop loss oo ah waa inta aad go'aamisay in aad khasaartid ya inta aad go'aamisay inaad khasaartid suuqana marka uu yimaado goobtaas aad uga baxaysid waxa la dhahaa stop loss waa adaa go'aaminaya tanna waa inta aad rabtid suuqa inaad khasaartid inta aadan gelin ka hor baa go'aaminaysaa inta aad rabtid suuqa inaad khasaartid iyo inta aad rabtid inaad faa'iidid taasaa waxaa la dhahaa marka waxa la dhaho stop loss okay haddii ay la fahanto marka saddexdan wax waa muhiim saddexdan wax sida u shaqeeyaan marka meesha aad suuqa ka gelaysid meesha uga baxaysid iyo inta aad rabtid inaad khasaartid iyo inta aad rabtid inaad faa'iidid adaa go'aaminaya halkaa markuu gaaro igu xir faa'iidadeeda intaa in ka badan suuqana ama ha sii socdo ama ha soo laabto wax iga galaan ma jirto intaa markuu gaaro iga xir faa'iidadeeda la dhahaa take profit tanna waxaa la dhahaa halkaa cayiman markuu suuq soo gaaro ba halkaasaa ka gelayaa oo meesha suuqa ka gasho weeye okay waxaa ka sarreeya take profitkii haddaa buy u gelaysid haddaa buy u gelaysidna waxaa ka hooseeya stop losskii haddaad sell u gelaysidna waxaa sarreeya stop losskii oo entry pointiga dhexdu ku jira hoosna waxaa jira take profitkii iyadoo tusaalahana waan ku tusayaa saddexdan wax say iskugu xiran yihiin okay saddexdan qodob waa muhiim saddexdan qodob oo fahantidna waxaad fahantay wax badan okay qaybtii suuqii waa kan halkanaad kala soo baxaysaa waa ujeedaa sooma meesha tan baad kala soo baxaysaa waxaa la dhahaa short position oo waxa kusoo baratay terminology ama eray bixintii baa kusoo baratay sida loo isticmaalo trading view-gana waad kusoo aragtay halkan marka baa kala soo bixin meeshaas waan idin tusayaa chartska markaan tago marka short markaad ku dhufatay macnaheedu waxa weeye short position suuqa sell ii geli weeye okay u jeedaa sooma waa sell oo maxaa hooseeya faa'iidadii baa hooseysa oo khasaarihii baa kor jira entry pointigina waa kan oo waa dhex bartamahaas ma ujeedaan
marka MetaTrader 4 iyo sida loo isticmaalo baan waxaan kaga hadlay qodobada tan okay maxaa marka lagaa doonayaa marka aad lacag gelaysid tusaale oo kale kaba soo qaad waxaad gelaysaa euro cad baa gelaysaa oo kale maadaama aad euro cad gelaysid maxaa lagaa doonayaa euro cad ba waxa ku gashay sel waxa lagaa doonayaa marka MetaTrader 4 kaaga tagaysaa lacagta meelihii laga doonayo sida loo isticmaalo MetaTrader 4 ka dhan muuqaalka waxa weeye ka duuban baad daawanaysaa koortaad lacagii soo dooratid ba waxa dooranaysaa lacagtii ba waxa leedahay okay waxaan rabaa inaad hadda order furto eurocad baa soo dooratay lot size-kaagi baa dooratay waxaagii o dhan stop loss-kaaga marka entry point-iga waa markaad waxa u baahan tahay markaad sell stop iyo sell limit iyo buy limit iyo buy stop iyo aad gelinaysid markaas oo trade aanan weli bislaan sell limit-ka iyo sell stop-ka iyo haddaad soo daawato way soo fahantay markaas u baahan tahay laakiin marka aad trade caadi hadda eurocad oo hadda rabtid inaad sell ku gasho shuruudihii kuu soo buuxisay istaraatiijiyadaada marka aad gelaysid istaraatiijiyadu waxay tahayna waa baran doontaan marka aad lacagtaas marka gelaysid maxaa lagaa doonaya wax la dhaho stop loss iyo wax la dhaho take profit marka take profit waa numberkaas cagaarka muxuu cagaar u yahay sababtoo ah profit waa kan faa'iidadii waa cagaar sababta awgeed buu kan wuxuu u yahay cagaar buu u yahay oo colorka kan baa cagaara oo mar walba oo aad colorka cagaarka aad aragtid marka MetaTrader 4 kaaga aragtid xagga hoose waa cagaar diilinta hoose oo micnaheedu wuxuu ka dhigan tahay numberkan geli take profit ka halka geli baa lagu leeyahay oo u dhigmata numberkaas hadaa u jeedaan halkaas ku qoran oo u dhigmata eber 5-3-4-4-3 waa maxay waa take profit kaaga numberkaas waxa gelinaysaa MetaTrader 4 kaaga oo see ku gelinaysaa MetaTrader 4 ka hoostiisa hadaad diilinta fiirisid meesha take profit ka waa cagaar hoose casharka MetaTrader 4 kana aad uga sharaxaya iyo sida loo adeegsado okay kan markaad fiirisidna waxa weeye waa guduud halka markaad fiirisid waa guduud numberkaasi numberka waa maxay waa inta aad rabtid inaad khasaartid oo waxaad tiri 30 bib baa rabaa inaad khasaaro inaad 100 bibna faa'iido 102 bibna faa'iidana waa rabaa numberka markuu gaarana automatically uu kaaga baxaya waxa faa'iidada kugu xirmaysa halka markuu gaarana khasaaraha waa kugu xirmaya inta aad suuqa gelin baad soo xisaabsatay okay waana fahantay waxa la dhaho lot size-ka iyo sida loo xisaabiyo iyo qaabka inta aad suuqa gelin ka hor baa xisaabsatay inta khasaaraysa inta faa'iidaysid faraha ka qaasan numberkaas aad gelinaysaa numberkaas oo isaguna ah stop loss ka halka kugu qoro waxa weeye eber dhibic 5-4-7 waa tusaale casharkani laakiin waxay ku xiran tahay mar walba lacagta gelaysid halkana ka soo dooranaysaa lacagta dhiganaysaa sida loo dhigtay waxaas oo dhan waxa weeye adiga ku celcelinaya ku celcelitaan fara badan baad samaynaysaa numberka markaad gashatid stop loss kaaga micnaheedu waxa weeye halka markuu suuqu soo gaaro 30 bib baa rabaa inaad khasaaro iiga saar numberkaas aad gelinaysaa lacagta eurocad baa soo dooratay kow okay suuqa waxa ku galaysaa waa sell laakiin wali lama gaarin sellkiisu maxaa samaynaysaa eurocad baa soo dooratay markaad eurocad soo dooratid maxaa samaynaysaa waxa ku xiga samaynaysid take profit kaaga gashatay maxaa galoo gashanaysaa stop loss kaagi baa gashatay kadib suuqu markay suuqa rabtid inaad hadda gashid ya sell baad ku dhufanaysaa lot size-kiina oo soo dooratay soo sell baad markaa ku galaysaa suuqii isku gaafuraya taas waxa weeye waxa la dhaho take profit iyo stop loss okay iyadoo chart iyo tusaalana way digeynay intriga kan goorma u baahata marka muhiimadu intrigu waa meesha suuqa ka gelis laakiin intriga mararka price ka aad ka gelis suuqa u baahata waxa weeye waa trade kan hadda waa trade ama sell ama buy ku geliso bislaaday laakiin markaad sell limit iyo sell stop iyo buy stop ku gelisid waa maxay waxa weeye waa marka uu suuqu uu soo gaar meesha rabtay aad rabtid inaad sii raacdid ama sugtid in suuqa markuu halka yimaado aad kala wareegay aad raacdid taasna waxa ku sharaxay muuqaal dhan marka suuqu laba qaybood buu u kala baxaa marka MetaTrader 4 ka aad arkaysid waa trade hadda aan wali bislaan oo aad mashquuli doontid markaas ay isleedahay suuqan halka markuu soo gaaro dhaqaaqi doona wax yar baa ka dhimanay anna waa mashquulayahay sell stop ama buy stop ama sell limit ama buy limit easy geli markaas intriga u baahan tahay oo markuu halka soo gaaro isku ka active kare laakiin markuu saan yahay oo kale waxaad ka gelaysaa stop loss ka take profit ka aad ugu baahan tahay marka aan tagno tusaale xiga ileen kani waa markuu suuqu sell yahay markuu suuqu sell yahay stop loss ka uu kor buu jiraa take profit kaaguna hoos buu jiraa labada number u baahan tahayna waa labadaas number weeye okay haddaan tagno marka qaybta xigta
waxaan tegaynaa qaybta xigta oo ah iyaduna marka uu suuqu yahay buy. Okay, suuqu marka uu buy yahay waxa sareeya cagaarkii baa sareeya oo faa'iidadii baa sareysa oo take profitkaaga kor buu jiraa. halka markuu suuqu sell take profitkaagu hoos jiray. waa bilcagsi. entry pointigaagina waa kan oo mar walba dhexdu ku jiraa. take stop losskaagina waa kan oo mar walba hoos buu jiraa marka aad buy suuqa ku galaysid. marka sell ku galaysidna stop losskaagii kor buu jiraa. marka waa markuu suuqu buy yahay. marka halkan maxaa lagaa doonaya marka kaba soo qaad hadda waxaan idhaahnay USD JPY baa waxa ku galaysaa trade-ka waa trade bisil. hadda waxa ku galaysaa lacagta tan USD JPY baa waxa ku galaysaa fartayna waa weynaysiinaya baa waxa ku galaysaa lacagtana buy ku galaysaa USD JPY. entry pointiga waa ka halka ka galaysay. maxaa sameynaysaa marka stop losskaaga waa kan. stop losskaaga waa numberkaas halkaas aad gashanaysaa. waxa leedahay tusaale oo kale waa tusaale kani. okay, meel cidla ah baa ku qotay ma aha chartiga suuqa inay wax ku fahansiiyaan rabaa. eber dhibic 39 63 6 waa maxay waa stop losskaagi wakaas numberkaas aad gashanaysaa oo inta rabtid inaad khasaartid kana 30 bib 34 bib rabtaa inaad khasaartid 103 bibna inaad faa'iidid baa rabtaa. okay, aan tagno marka mar walba waa cagaar oo way buu cagaar u yahay sababtoo ah halkana cagaar oo u jeeda Soomaa targetkaaga cagaar ah sababta awgeed buu u noqday. marka numberkan qor iyadana take profitkaaga waxa way meesha markuu ku gaaro cayiman eber dhibic 4 eber 8 halka waxa waxa tira markuu halka soo gaaro targetkaygi halka ii gaaro suuqa farahan ka qaadaya. taas baa waxa la dhahaa waxa weeye take profit. aan tagno marka isagoo tusaale oo suuqiya aan tagno marka oo cayiman oo aad si faahfaahsan u fahmaysaan. okay, chartigi suuqa aan idin geeyo marka aan tagno 1 hour. lacagta tan hadda way noo falanqaysan tahay. waxaan idhaahnay lacagta tan tusaale oo kale kaba soo qaad lacagta tan waxaad ka gashay bartan baa ka gashay halkaas ka gashay buy buu u socday lacagta tan u socotay. maadaama ay buy u socotay long position baa dooranaysaa halkaas ka galaysaa. khasaaraha waxaad tiri waxaan rabaa inaan khasaaro 30 bib baa tiraahday. targetkaygana waxaan rabaa halka inaan ka dhigto. taasa waxa la dhahaa marka suuqa buy ku galaysid. maxaa marka sameynaysaa lacagta soo dooranaysaa euro USD halkaas aad waxa weeye waxa qoranaysaa khasaarahaagi numberkaas weeye inta rabtid marka 30 bib rabtid inaad khasaartid guduud weeye iyo ka numberkaas aad gashanaysaa. lacag walbana marka ay meesha ku soo gaarto sidaas aad entry pointigaagina waa gan kana waa ka targetkaagina. taasi waa marka aad suuqa buy ku galaysid. isagoo sell marka galaysidna halkanaaba ka soo gashay tusaale oo kale isagoo sellana maxaa ku galaysaa isagana halkana ka soo dooranaysaa meesha tan trading view-ga ku soo micneeyay sida loo isticmaalo. short position baa soo qaadanaysaa halkaas ka galaysaa intaas aad riba raba inaad khasaaro oo ah 30 bib halkaas targetkaagina waa ka halkaas ka dhigatay targetkaagi maxaad ka dhigatay bartaas waxaad tir halka markuu soo gaaro suuqa iga saar numberka maxaa hooseeya faa'iidadaadii baa hooseysa marka suuqa sell ku galaysid. marka buy ku galaysidna faa'iidadaadii baa sareysa oo tusaale waa kan halkan ka gashay buy-gi marka suuqa gashay halkaas ka gashay faa'iidadaada. okay, maxaa sameynaysaa marka يعني suuqa marka aad ku galaysid oo halka ka galaysid oo ku galaysid buy waxa hooseysa khasaaradaadi oo faa'iidadaadi baa koraysa. marka sell ku galaysidna khasaarahaagi baa sareysa faa'iidadaadi baa hooseysa sababta suuqu hoos buu u socdaa marakanna suuqu kor buu u socdaa. marka aad ku galaysid suuqa sell numberkaaga oo ka intaas rabtaa inaad khasaartid intaasna faa'iidid baa rabtaa. waa inta kaliya marka aad suuq trades ku soo bislaaday aad galaysid. marka aad rabtid marka hadda tusaale kale aan lacagta tan hadda waxa rabaa marka inaad idin tuso wax muhiim ah oo aan hadda rabo inaan idin sharaxo. lacagta tan hadda halka ma soo gaarin balse halka markay soo gaarto waxaad tiraaday sell bay soo aadaysaa. marka waxa laga inaad mashquulshid safar ku jirtid waxa leedahay lacagta tan sell bay soo aadaysaa halka markay timaado isbaara ii sii dhig baa leedahay halkaas isbaara u sii dhiganaysaa. marka maadaama isbaara u sii dhigato waxa tiraaday aniga lacagtan halka markay soo gaarto kadib maxaa marka isticmaalaysaa markii aad suuqa ku galaysay marka waxa weeye aad ku galaysay sell iyo buy isla markii bisil ma uu ka duwan yahay
oo waxaad markii adeegsanaysa kaliya stop loss iyo take profit laakiin kan number kana qoraysa price kaas waa price marka MetaTrader 4 ka tagtid waxa ku soo baxaya waxa la dhaho price oo ah يعني meesha aad rabtid suuqa inaad ka gashay price ka marka number kaas ku qoraysa ma u jeedaan number ka madowga ah u jeedaan 1 dhibic number ka kaniya u jeedaan soo number kaas madowga 1 dhibic 1 2 8 9 6 sababtoo ah meesha ku beegan oo aan raacnay halka markuu soo gaaro suuqu ba galeynaa aan raacnay okay igeli baa tiri suuqa meesha waxa la dhahaa marka waxa la dhahaa price sababtoo aad meesha u geliso waa maxay sababtoo hadaad dib u soo celino trend line ka hadaad dib u soo celino waxa arkaysaa meesha tan ahayd meel suuqu uu horay uga soo laalaabtay hadaad dib u fiiriso aad leedahay oo darasta in halka suuqu ka soo kala wareegaya marka maxaa ku soo gelaysaa waxa la dhaho marka waxa ku soo gelaysaa sell limit baa dhiganaysa spiral la dhaho sell limit oo waa ku soo sharaxay sell limit ka iyo qaabkaas micnaheedu halka markuu suuqu soo gaaray igeli weeye maxaa qoranaysaa marka price ka qoranaysaa u jeeda Soomaa waxa qoranaysaa price ka waxa la dhaho waa maxay price ku waa maxay marka waa hal dhibic hal labo sideed sagaal lix price kaas waxa gelinaysaa MetaTrader 4 ka meesha ay price ka ku qoran tahay number kaas ya kadibna maxaa gashanaysaa stop loss kaaga iyo oo ah number kaas oo ah stop loss kaaga oo rabtid inta rabtid inaad khasaartid oo ah 1 dhibic 3 6 7 3 waa maxay waa stop loss kadib maxaa gashanaysaa take profit kaaga baa gashanaysaa oo isaguna ah take profit oo isaguna waa maxay take profit kaagu waa 1 dhibic hal kale 1 dhibic 1 labo take profit ka kadibna maxaa leedahay place baa leedahay kadib markuu meesha cayma soo gaaro halka yimaado isa isku ka active gareynaya jihadaas ku soo aadaya tan kale buy limit kuna waa bilcagsigiisa buy stop kuna waa qaabkaas oo kale oo horeyba u soo sharaxnay mudanayaal iyo murwooyin markaad fiirisid marka tan waxa weeye maxaa isla fahanay waa qaababka markaad sell limit ku galaysid maxaa markaad isagana ku galaysid buy limit aan isla fiirino iyadana buy limit waxa weeye waxa tiraahday suuqa kani hadda halka markuu soo gaaro uu soo gaabis halka markuu yimaado imaanaya kadibna uu kala wareegaya marka maxaa ku galaysaa waxa ku galaysaa waxa la dhaho buy limit baa ku galaysaa suuqa halka ma soo gaarin bartaas isii gali baa leedahay ujeeda halka markuu soo gaaro isii gali baa leedahay tan waxa la dhahaa halka markuu soo gaaro igeli baa leedahay suuqa kan waxa leedahay tan waxa la dhahaa waxa la dhaho buy limit baa la dhahaa tan waxa la dhahaa buy limit baa la dhahaa buy limits baa la dhahaa maadaama tan buy limit la dhaho buy limit waxa suuq wali salbu ku soo socdo halka markuu soo gaaro kala wareegaya reverse ka sameynaya isii gali isbaar ina mashquula laga yaaba imtixaan galaya arday yahay halkaas isii gali baa leedahay kadib maxaa jira marka waxa la dhaho marka maxaa qoranaysaa tan entry point-gaaga oo isna sida tan oo kale aha waxa qoranaysaa meesha suuqa rabtina uga baxdid oo khasaarahaaga inta rabtina faa'iidid taas waa waxa la dhaho marka aad suuqa ku galaysid kadibna place baa leedahay okay MetaTrader 4 ka aad ugu micnaynaya waxa kale oo jira marka waxa la dhaho buy limit waa isla fahanay iyo sell limit iyo waxa galeynaa marka waxa la dhaho sell stop iyo buy stop iyagana see u dhiganaysaa sell stop kuna waa sidoo kale tan soo qaadanaysaa suuqana waxa leedahay halkan uu soo dhaafay meesha Sooma intriga labaad markuu yimaado halka isii raaci baa leedahay buy stop kuna waa maxay xalada suuqa halka intriga uu dhaafay markuu suuqu saan u dhaqaaqo oo halka correction kan ka baxo halka isbaarada isii dhigo buy isii gal suuqana ilaa halkaas uu sii soconaya oo isbaara u sii dhiganaysa buy stop ka taas waxa la buy stop price ka gashay meesha isbaarada dhigata price ka waa qoranaysa target kaaga take profit kiya iyo stop loss kiya iyagana sell limit kiya aad ugu sharaxay MetaTrader 4 mudana yaaliya murwooyin qaybtani waa qayb aad muhiim u ah oo qofku marka uu fahmo uu suuqana dhafahmay iyagoo faahfaahsan risk entry reduce risk entry qaybta saro istiraatiijiyadeeda
baa aad ugu fahmaysaa waxba ha khalkhalin si degan casharka inta aad ka fahanto qoro kadibna waxaa ku fahmi doontaa intriga iyo targetka iyo take profitka reduce risk intriga iyagoo qurux badan oo si faahfaahsan oo qoto dheer ah qaybta sare ee istaraatiijiyadeyda waxba ha walwali tan waxaan rabaa inaad fahantid oo hadhow waxa aan sharaxayo markaa dhaho riski intri halka waa intri halka waa take profit inaad ila socotid oo fahantid baan rabaa saasaan tan kuu tusinay waa mahadsantihiin mar iyo marar badanba mudanayaan iyo murugooyin ogaadana lacaga badan ba ku fiirin kartaa ma aha keliya tan hadda aan weydiisinayo tusaalayaal bay ahaayeen okay cilmigiina markaa barataan iyo falanqayntana aad u fahantaan baad samaynaysaa haddii aad cusub tahay guulaysta mar iyo marar badanba